halkan waxaan kaga hadlaynaa arrin ku saabsan magaalada Dhuqushay oo maamulka la soo magacaabay sidii la isku ogaa si aan ahayn loo soo dhigay taasoo ay beelaha magaalada degan Dhuqushay oo 3 beelood ka kooban ay ka shireen isla garteena maamulkii hore jiray in la bedelo laguna bedelo 3 nin oo cusub barasaabka gobolka Togdheer iyo odayaasha ka kooban 3 beelood way isla qaateen arrinkaasi markii uu Hargeysa noo dhaafay halkii laga soo ansixin lahaa waxaan laga soo noqday arrin aanu qaadan weynay haddaanu beelinahay arrinkaas oo ah 3 nin oo hore maamulka ayaanu ridnay ninkii gudoomiyaha oo la reebay iyo 2 cusub ninkaasina wuxuu ahaa xaqiiqatan markii run la sheegayo ninka magaalada iska hor keenay rabshada ugu weyn iyo waxa ka taagan magaalada number 1 ka waxaan ku taageersanahay oo danta dadweynaha ee Dhuqushay iyo danta Soomaaliland iyo danta deegaamada dariskiiba ay ku filan tahay wixii ay kalsoonida ku jirto ama laga wada raaliya wixii xari kala jiidasha ama dambe kordhiya ama qulquulina waxa weeyaan magaalada Dilul wixii aan magaalada raali ka wada hayn ee ka wada tashanayni waxay leedahay waxyeelo waxaan ninka laga sii daynayo hadii badankeed leeyahay dhawaaqeedu baxayo istabamariska qaarna dira wax qurux leh maaha waxaanu leenahay dumar looga tashado oo kuwa turxaan la oo ayaasuma soo sheegeen ninka Dhuqushay laga bedelay ee dadkoo dhan ka qayliyay ee beelaha madaxa isugu dhiftay ee magaalada maamulkeedii haruu baabiyay ee iminka lagu soo celiyay الأول هرت مامل كان كان سوى اليمين لنا نوضل هاي معها لنا نوضل شغينا إنما معها المجالاتنا وحمانه هو حدين كان سوى الغورني وحمانه وكتير يا متيران لما كان كان سوى اليمين مجالاتنا أمان كذا يسير مسؤول كان مجالاتنا أمان كذا المايو ماملنا كذا المايو دقمنا كذا المايسو أنت وشوقنا وحمانه ونبتجليه ومجالاتنا كذا يا متيران وحي أمان دري ماشى كيماته مسؤول واحد كان حديني كاسو عليه ماشى كان في مسؤول كيه نيكا maamul ka ninka soo kala reebay inuu mas'uul ka yahay dawladda soo kala reebtay inay mas'uul ka tahay arrinka wixii halka ka dhaca inay mas'uul ka tahay oo heshiis la'aanta ka timaada Dhuqushay iyo maamul xumada Dhuqushay joogta sabab waxa ka ah waa tan hadaan odayaasha iyo barasaabka iyo gobolka isla garanay in ragga la bedelay cid soo celisay waxa ka xumaada cid soo celisay un baa mas'uul ka